daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii waxaa la dhinaca diblomaasiyadda horfadhi media waa 3 May waa maalinimo axad ah daawadayaashana qiimaha leh meel kasta aad joogtaan Ramadan Mubaarak halka nagala socotaana waa wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinada dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo sidoo kale ugu horeysiyo daawadayaashana qiimaha leh dalka Iraq ayaa sheegay kuna dhawaaqay in ay ogolaadeen inay oofiyaan heshiiskii ahaa inuu hirgalo qorshaha loo yaqaan yareynta iyo jarista saliidda ayadoo darbiyada la arkayay in suuqa saliiddu u muuqdo mid kor u soo kacaya 23% ayaa hay'adaha iyo shirkadaha fadhiya magaalada Basra ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in la joojinayo sidoo kalena wasaaradda arrimaha u qaabilsan tabarta dalkaasi ayaa sheegtay in saliidda la jaray 3% wax soo saarka saliidda ceeriin ee dalkaasi ay kamid tahay heshiiskii hore loogu gaaray in marka la gaaro bishan May horaanteeda la joojiyo ama la yareeyo sida soo saarista si suuqa looga yareeyo saliidda faraha badan ee ku qulqulasa waxaa la yiri tan waxa ay daba socotaa qorshihii hore loogu heshiiyay ee ahaa in la dhimo saliidda galaysa suuqa si loo fariisiyo arintaasi oo ay hore soo qaateen baa la yiri wadamada ku jira OPEC wax loo yaqaan OPEC iyo kuwa la saaxiibka ama OPEC kula saaxiibka OPEC plus la dhaho waxaana wasaaraddu sheegtay in ay tani qayb ka tahay xakamaynta suuqa iyo in suuqu uu noqdo mid gacanta ku jira sharaa'iga waaweyn dalka Mareykanka ayaa cadaadis ugu darnaa saaray dalalka ay kamid tahay Saudi Arabia isagoo ugu baaqay in ay joojiyaan suuqa ay ku ciyaarayaan taas oo dhalisay in ay dawladda dalka Mareykanku ay dhowr jeer ku hanjabto in ay cunaqabatayn saarayso Sacuudiga haddii ay arintaas wax ka qaban waayaan ama ay ku adkaystaan daawadayaal waa wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo waaweyn warbixino kala duwan baa inoo soo socda daawadayaasha qiimaha leh hatan Trump madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu u muuqdaa mid ka caraysan ayaa la yiri kadib markii ra'iisul wasaaraha Yahuuda Netanyahu Benjamin Netanyahu ninka la yiraahdo uu sheegay in uusan wada aqbalaynin heshiiskii awalba ayagu ay ku bursadeen ama loogu buriyay oo uu sheegay inuu kala saafayo qaybna qaadanayo qaybna uusan qaadanayn waxaana la sheegay in Netanyahu uu diiday weedha iyo hadalka tidicda ku jirta meesha ah xalka labada dal ama waxa loo yaqaan two state solution oo uu sheegay in kelmadaas meesha aysan u baqalmin laga saaro taasoo macnaheedu ay tahay inuusan dooneynin in uu arko kelmadda two nations waxa afka qalaad ugu yiraahdo ama laba qaran inay soo gasho oo mar walba ay qaranka kaliya meesha ka jira ama dawladda kaliya meesha ka jirta ka taaba gasha ay noqoto ayaa la yiri Israel sida uu sheegayo TV-ga Israel ee la yiraahdo TV Channel 13 ama channelka 13aad ee dalkaasi Yahuuda ka soo baxa waxa la yiri in ay jiraan baa kala duwanaansho weyn oo qaanuuniya oo ku xiriira ayaa la yiri sida hadalku u qoran yahay labada hogaamiye wararka ay sheegayaan in Netanyahu uu u sheegay Mr. Trump in uu doonayo inuu ku wada liqo arintaas sidaas oo ku dudub ku qaato waxa uu TV-gu warbixin uu ka diyaariyay qadiyadan uu ku yiri waxaanu helay ila sheegaya in uu Mareykanku uusan ku qanacsanayn sheegashadan dambe iyo qaadashada dhulka loo yaqaan Jordan Valley iyo badda Jordan Valley waa dhulka badan la yiraahdo badda meydka ama badda dhimatay bahru meyd Dead Sea badda la yiraahdo dhinac saaran taasoo ay sheegeen inay ku darsanayaan waxaana warka qoraal ah oo uu soo saaray baa Trump u soo diray baa Trump u diray Netanyahu uu ku yiri waxaan rabnaa in aad aydan sameenin korxaad oo aydan inta muhiimadda ka goran heshiiska taasi waxay noqon doontaa in aan anaguna aan ka wada baxno heshiiska oo dhan ayuu madaxweyne Trump u ku hanjabay Trump ayaa Netanyahu sidoo kale kula taliyay inuusan ku degdegin in uu dhul kale ku sii darsado laakiin goorsi horeysay xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in go'aan kasta oo ku saabsan in dhul cusub ay ku darsato dhulka reer Falastiin oo ka goosato Israel ay noqon doonto mid iyada u taala balse aysan hayn qadiyad Mareykanka khusaysa hase yeeshee sidoo kale safiirka dalka Mareykanka u fadhiyay Israel David Friedman ayaa waxa uu sheegay in Trump si toos ah loo ogeysiyay in heshiiska qarniga waxa loo bixiyay uu yahay kan uu doonayo madaxweynaha Trump in la meel mariyo balse uusan hayn in la meel mariyo qorshaha cusub ee dhul goosashada ee Israel ay wada yeelay halka nagala socotaan daawadayaal waa wararkii oo calaamad dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ayaa inoo soo socda ee wali Trump iyo arrimihiisii ayaynu ku bartanka kaga jirnaayay ayadoo ogtihiin in labada dal ee Mareykanka iyo Waqooyiga Korea ay col yihiin maryo dhiig la kala furtay ku dhawaad muddo 70 sanadood ka hor ayadoo dagaalkii cuslaa ee ka dhacay gacanka loo yaqaan Koreaanka uu dhaliyay in ay Mareykanku halkaas ku daafacaan dalka Koonfurta oo ay soo weerartay Waqooyiga ama dagaalkii Waqooyiga Koonfurta intaas labada dal col daahi go'ay ayay ahaayeen
kulankii labada nin labada hogaamiye waa Kim Jong Un iyo madaxweyne Donald Trump ay ku kala yeesheen magaalooyinka Singapore iyo magaalada Hanoi ee gobolkaasi Vietnam ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay ee loo muuqday u muuqday in halkaasi ay arrin guul dhinaca diblomaasiyadda ka soo leedahay laakiin arrinta la yaab kale waxay ahayd markii uu soo baxay hadalka in hogaamiyaha waqooyiga Korea uu geeriyooday ama uu culus yahay ayaa waxaa u muuqatay hadallada Trump ka soo baxay kuwa siyaasiyiinta Mareykanka ay dhibsanayaan taasoo muujinaysay in madaxweyne Trump uu ka xun yahay arrintaas haddaba madaxweyne Trump ayaa muujiyay in Mareykanka uusan ku faraxsanayn haddii uu dhinto Kim Jong Un ama dhimashadiisa wuxuuna bartiisa Twitter-ka markii horeysay soo geliyay hadal qoraal ah oo markaasi link ah ama markaasi tixraac ah oo hadalka warbaahinta dalkaasi waqooyiga Korea ay ka qortay hogaamiyahooda iyo sawiradii isagoo oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee abid hadal noocaas oo kala soo sheer gareeyay bartiisa gaarka ah ku soo geliya dad badan baana aad iyo aad uga cadhooday oo sheegay in warbaahin aan lagu tilmaami karin warbaahin oo wakaalad way isticmaalaan maamul baa la yiri gacmaangagiina in madaxweynaha Mareykanka jooga dalka adduunka ugu dumuraadisan baa leh warbaahintuna ugu xortahay in uu soo hibto ama soo xagaysto oo soo xigto arrintaas oo kale inay tahay meel ka dhac aad weyn ayaa leeyahay si kastaba ha noqotee madaxweyne Trump ayaa wuxuu qoray oo yiri waxa aan ahay ayuu yiri ku faraxsan in uu arko Kim Jong Un in uu soo laabtay isla markaana uu fiican yahay oo falayo si wanaagsan waxaana uu sheegay in Mareykanku uusan ku faraxsanayn geeridiisa iyo inuu markaasi ninkaasi uu geeriyoodo Kim Jong Un ayaa hadal kiisa dhinaca caafimaadka ama calaamadaha dhinaca caafimaadka waxa ay timid kadib markii fagaarayaasha laga waayay gaar ahaan goobaha caanka ku ahaa inuu ka soo dhex muuqdo dabaaldega awowgii oo maalinta ugu weyn ayadoo awowgii loola dhaqmo sida loola dhaqmo ayaa la yiri wadamada haysta diinta ay ula dhaqmaan ambiyadooda ayaa lagu yiri warbixin goor hore la arkay KCNA wakaalada wararka dalkaasi ayaa si weyn ugu tiqtiqsanaysay markii uu furayay goob u muuqatay inay ahayd goob markaasi dhirayna oo uu ka furayay dalkiisa sidoo kalena waxaa aqalka Blue House ka la yiraahdo afayeen u hadlay waa aqalka looga taliyo dalka Koonfurta Korea uu sheegay in ay awalba ogaayeen haday yihiin koonfurta oo iyadu mar walba ku adkeysanaysay in uu ninkaasi lidan yahay afayeen u hadlay oo leeyahay Chan In waxa uu sheegay in uu ninkaasi awalba ay ogaayeen inuu fiican yahay oo nool yahay isla markaana fiican yahay sida ay sheegeen halka nagala socotaan daawadayaal waa wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda Boris Johnson waxa uu wiil yar oo u dhashay toddobaadkii hore uu u bixiyay ama ku sameeyay dhakhaatiirtii caafimaadkiisa ku hagoogtay sida uu sheegay war qoraal uu soo saaray Boris Johnson oo ay kula saxantahay gabadha markaasi u doonan ee Carrie Simons la yiraahdo waxa ay sheegeen in wiilkooda ay u bixiyeen Wilfred Lowry Nicholas Johnson ayagoo sheegay in dhakhaatiirtii badbaadisay ay u magacdareen warka qoraalka waxaa lagu yiri waxaan u bixinay Wilfred baa la yiri iyo Lowry iyo Nicholas baa la yiri cunug waxaana sheegeen in dhakhaatiirtii badbaadisay ay ninkaasi qaarkood xitaa isku magac ahaayeen baa la yiri qoyskiisa gaar ahaan awowgii labaad iyo awowgii saddexaad sida uu sheegay Mr Johnson waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqada weyn ee hay'adda caafimaadka dalka Mareykanka dalka Britain ay u hayso dadweynaheeda ee loo yaqaano National Health Service waxa uu yiri waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa shaqaalihii ka socday waaxda umulisooyinka iyaguna ku dadaalay cunuga inuu adduunka yimaado Mr Johnson ayaa waxa uu sheegay in uu hadeerta uu falayo si wanaagsan wuxuuna sheegay inuu hadeer farxad kula nool yahay qoyskiisa iyo cunugiisa yar ee haatan u dhashay halka nagala socotaan daawadayaal wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn iyo qodobo kale ayaa noo soo socda daawadeysheena qiimaha leh hadeertan aan eegno dalka Russia ayaa la sheegay in xanuunka uu u muuqdo coronavirus ka la yiraahdo mid aad ugu soo badanaya dalkaasi oo hadeerta uu bedeli karo baa la yiri haddii uu soo raysto dalka Mareykanku inuu asagu noqon doono dalka bedela ee dalkaasi dalka u doomara xanuunka hogaamintiisa 10,000 oo qof ayaa hal maalin oo shalay kaliya ku soo daatay magaalada Moscow ee xarunta dalkaasi oo xanuunka u soo daadanaya iyadoo la sheegay in magaalada Moscow hadeerta ku dhawaad 62,000 dad ka badan ay xanuunka soo daateen dalkaasi ku dhawaad 130,000 oo qof ayaa xanuunka la ildaran
1500 ku dhawaadna waa baxeen ama waa geeriyoodeen sida ay sheegayso waaxda u qaabilsan la socodka xanuunka. Madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa ku baaqaya in isbitaaladu ay guntiga dhiisha u xidhaan inay badbaadiyaan dadka isla markaana ay diyaariyaan qalabka neefsashada iyo waxa kale ee sahli kara. Laakiin dhakhaatiirta ka soo waramaysa xaaladda magaalada Moscow ee xarunta dalkaasi ayaa waxay ka digayaan in ay ciriiri ku yahay sariiraha iyo dadka meesha dhigaya. waxay yiraahdeen in magaalada Moscow hadeerto 62,600 oo kiis ama dhacdo ay soo gaadhay taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid ka tan weyn isbitaalada qaarkood iyagoo dadka daraska sameynaya ay sheegayaan in laga yaabo inay laba jibaaranto tirada magaalada kaliya. dalalka kale ee xanuunka hadeerto aad uga soo reysanaya marka la eego dalalka xanuunku darsanayo mooyaane ayaa waxa ay kamid ah dalalka reer Yurub ee xanuunka ugu daraa ee Faransiiska, Itaaliya iyo Isbaaniya. dalka Mareykanka ayaa wali la siciiraya dhimasho fara badan iyadoo dadka iyo gobolada qaarkood ay ka digayaan in lagu degdego in dib magaalooyinka loo furo iyo gobolada ayagoo sheegaya in la sii hay doono dadka ilaa iyo inta xaalku si uu noqon karaay. inta aan ku joojiyay qodobkana daawasha qiimaha leh qaybta saddexaad ee wararka oo calaamad dhinaca diblomaasiyadda daqiiqatay.